Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaw mawduuceena maanta. Maxaad ka taqaanaa dalka Soomaaliya? Waa sidee xeebaha dalka Soomaaliya? Waa sidee juqraafiyada dalka Soomaaliya? Intaan ka gudbin, please subscribe noo saar, like, share, comment. waa ku mahadsantahay daawasho wacan. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. Kusoo dhawaw mar kale. Halka ay dhacdo Soomaaliya. Soomaaliya waxa ay ku taalaa geeska Afrika bari. Waxaa xad la leh 3 wadan oo kala ah Itoobiya, Djibouti, Kenya. Dhinaca bari waxaa ka xiga badweynta Hindiya. Dhinaca galbeed waxaa ka xiga Itoobiya. Dhinaca koonfureed waxaa ka xiga Kenya. Dhinaca waqooyi waxaa ka xiga gacanka Cadan. Dhinaca waqooyi galbeed waxaa ka xiga Djibouti. Soomaaliya waxa ay leedahay 3,333 badka iyo dadka Soomaaliya. Badka Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa 638,000 mitir square, halka dadka Soomaaliya ee lagu qiyaaso 14.74 milyan. Dalagyada ka baxo Soomaaliya. Soomaaliya waxaa ka baxo dalag aad u fara badan sida galleyda, masagada, digirta, qudaarta noocyadeeda kala duwan, bariiska, sisinta, suufka iyo kuwo kale oo badan. Intaas waxaa laga helaa gobollada soo socda sida gobolka Shabeellaha Hoose, gobolka Shabeellaha Dhexe, Bay, Bakool. Wax soo saarka kale waxaa ka mid ah cusbada ama milix. Cusbada waa macdan qaali ah oo dalkeena laga helo. Waxaa isticmaala dhammaan dadka Soomaaliya iyo wadamada dariska. Beeyada iyo fooxa waa xabaq qaali ah. Buuraha Soomaali ku yaal. Buurta koowaad waxaa la dhahaa Suurad, waana buurta ugu dheer Soomaaliya, waxayna ku taalaa Sanaag. Buurta labaad waxaa la dhahaa Buurta Calmadow, waxayna ku taalaa gobolka Bari. Buurta saddexaad Buur Hakawe, waxayna ku taalaa Bay. Buurta afraad Buur Eyle, waxayna ku taalaa isla Baydile. Buurta shanaad waxay ku taalaa Mudug, waxaana la dhahaa Buur Shiilo. Halkaas haddaan ugu gudubno, dalka Soomaaliya wuxuu leeyahay 2 webi oo kala ah